saaxiibadeed ay yaraanteedii meel ku soo wada barbaareen, waqti badanna soo wada qaateen, haddana ay meel kula nooshahay ayay ninkii ka guursatay. Sheekadan waa sheeko cajiiba, fadlan noo sii sheer garay, like-kana ha naga ilaawin. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabteeda qaaliga, waa mar kale iyo muuqaal kaloo cusub. maxaan dhadhan ku hayo dhayaho keliga rabin inay kugu dhaygagaan. Sheekadayni waxa ay noo joogta Farxiyo oo guriga Leyla joogta iyo ninka Farxiyo oo imaaday iskuna dayay inuu si qasab ah ku wato. Dood iyo dagaal kadib waxaa dagaal meesha ku dhex maray ninkii Leyla iyo ninka Farxiyo, gacan qaadna uu meeshaas ka dhacay. In muddo kadib waxaa meeshii imaaday ayadoo buuq iyo qayle ay ka jirta Leyla hooyadeed iyo aabaheed lana ballansanayay Farxiyo ninkeeda si arrintan loo xalliyo xalna looga gaaro. Leyla aabaheed waxa uu gacanta qabtay ninkii Farxiyo meel geesana ula baxay, waxa uuna wareystay arrinta meesha ka jirta iyo xaaladda sida ay tahay. Waxa uuna ku yiri wax walba meeshan ka dhacaya waxaa ka mas'uul ah gabadhaadii iyo ninkeeda, ayaga ayaan ka dhaqmi la'naa, ayaga ayaana nagu dhex jiro oo xaaskayga ayaa ay u diraayo oo mar walbaaba ayaga xaggooda ayay dhibaatada ka imaataa ee wax aniga dhibaato ahaan leeyahay male. Markii aan imaado oo aan rabo xaaskayga inaan la hadlana waa ay ii diideen oo dagaal iyo qalalaase ayay igu fureen. Ayaga ayaa nagu dhex jiro oo xaaskayga igu soo diro. Leyla aabaheed waxa uu u tagay Farxiyo, waxa uuna la soo hadlay bal xaaladda sida ay tahay iyo sida ay wax u jiraan. Waa nin dilaa ah, dagaalkiisa iyo qayladiisana xaafadda aan deganahay oo dhan waana laga yaqaanaa oo maalin iyo habeen afka iskuma qabto oo sidaas ayuu mar walbaba u guryamaa oo u qayliyaa. Farxiyo waa ay diiday in ay ninkii raacdo, waxa ayna ku tiri intaa kadib ninka inuu i dilo miyaad ii daba dhigaysaa? Marnaba ma raacayo, lagamana yaabo inaan dib ugu laabto. Leyla aabaheed waxa uu la hadlay ninkii Farxiyo, waxa uuna ku yiri waqtina si aan ku soo wada hadalno ee bal orod aniga ayaa kula soo xiriiraya wixii markaa warka soo baxo. Waa uuna iska baxay, gurigiisa ayuu dib ugu laabtay. Leyla aabaheed waxa uu la hadlay Farxiyo aabaheed iyo ciddeedii, waxa uuna ku yiri dhibaato ayaa meeshan ka jirta ee bal ninkan la soo hadla, reerkiisana la hadla. Ninkan waa nin dilaa ah, waa nin aad u gacan qaad badan. Hadda ka horna gabartan dhowr jeer ayuu gacan u qaado oo ilmihii ay caloosha ku siday asiga ayaa ka soo tuuray. Ninkan wax walba way ka suurtoobaan lala soo hadlo. Labadii reer ayaa wada hadlay, waxaana go'aan lagu gaaray in la heshiisiiyaa oo mar dambaana dhibaatadan ayna soo noqon, wiilkoodana mar damba uuna gabadhan gacan u qaadi doonin. Adinkana gabadhiina la hadla, annagana asiga ayaan la hadlaynaa. Waana la heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey in Farxiyo gurigeeda dib loogu celiyaa balse uu reerkan u sii dhisnaadaa. Farxiyo waa loo sheegay arrintii, waxaana la yiri waa lagu duceynaa, maandhay gurigaada ku laabo. Leyla aabaheed ayaa wuxuu ku yiri bal markaan soo baxo gurigaada ku laabo, waan ku wadaa gurigaada ayaana ku geynayaa, wixii dhibaato wadane hadda ayay soo bixaysaa. Leyla iyo ninkeedana mar damba lagama yaabo inay idin soo dhex galaan. Farxiyo waa la waday, gurigeeda ayaana la geeyey. Ninkii wuxuu ballan qaaday in uuna dib damba gacan uuna u qaadi doonin, buuqooda iyo doodoodana mar damba ayna soo gaari doono oo xaaskiisana uu xalli doono, wax dhibaato ayna ka dhex dhici doonin. Waa la geeyey, in muddo ah ayayna qaadatay oona la isdagaalin, wuu is-celcelinayay intaas. Waa nin dagaal u bartee mar walbaaba waa uu soo farabaxsadaa, waa u qayliyaa, laakiin gacan qaadkii ayuu ka joojiyey. Waxa uu bartay Farxiyo ninkeeda balwad, saaxiibo xunxunna waa uu yeeshay oo inta badan waa uu mashquulsan yahay. Wuxuu ku mashquulsan yahay balwaddaas iyo saaxiibahaas xun. Marka uu yimaadana dagaal iyo qayle ayuu bilaabaa. Qof waxa uu barta ama dhaqankiisa arnaba iskama celi karee, sidoo kale waxa uu bilaabay inuu gacan qaad sameeyo oona dilaa. Farxiyo way adkaysatay, markaan ma soo bixin, gurigeedana kama soo bixin, qofna lama wadaagin oo arrinta qofay u sheegtay male, ayadii kaliya ayaa isku koobtay. Waa sida uu ka rabay
waxuu doono ayuu ka samaystaa waa uu dilaa. Farxiyo xitaa biil iyo masruuf badan ma siiyo, maalinkuu doono wuxuu rabuu siiyaa, maalinkuu doonana waxba ma siiyo. Deriska iyo dadka xaafadda degan oo dhan ayaga ayay hadal haayaan oo arrintooda ayay la yaaban yihiin, iyo gabadhan dulqaadkeeda iyo samirkeeda iyo sida ay ninkan waalan ula nooshahay. Farxiyo in muddo ah ayay adkaysatay iyo qof bil'aadana ayna arrinteeda la wadaagin iyo ayada ay ku koobnaad. Asigana waa sida uu rabee, sida uu rabo ayuu ka yeeshaa. Maalinkan rabana wuu dilaa, maalinkuu rabana waa uu ku qayliyaa. Farxiyo arrinta ayaa ku cuslaatay, meelay aadi iyo meelay ciirsata ayay waysay. Markan kadib waxay tiri inuu naftii dhaafiyo, wax yar ayaa iiga dhiman. Sidoo kale waa ina soo baxday, go'aan ayayna qaadatay dib dambe inayna ninkan ugu laabanin. Way soo baxday, waxa ay imaatay guriga saaxiibadeed, waxa ayna u sheegtay go'aankii ugu dambeeyay inay qaadatay, dib dambe ayna ninkan ugu laaba doonin. Xitaa hadduu dagaal iyo weerar ku soo qaado ay dacway doonto, maxkamadna ay la aadi doonto. Sababtoo jirdil fara badan ayaa ka muuqdo oo korkeeda dhaawacyo badan ayaa ku yaallo oo marqaati u noqon karo. Waxay tiri ninkan intaanu dhaawac ayay ku taalo, ilmihii caloosheeda ku jira asiga ayaa iga soo tuuray, marnaba lagama yaaba inaan gurigiisa dib ugu laabto. Saaxiib, waxa aan rabaa inaad garab i siiso. Layla iyo ninkeedii ayaa garab siiyo, gurigeeda ayaynu ku soo dhaweeyay. Waxay dhaheen walaashin ayaa tahay, annaga ayaad naga mid tahay, halkaan nagula noolow ilaa xal laga gaarayo. Sidii oo kale arrintii waxa ay gaartay labadii qoys, Farxiyo reerkeedii iyo wiilka reerkiisii. Waxaana go'aan lagu gaaray in labadan marnaba aanan la isku soo celin, la kala furo. Intaa kadibna waa la isdilayaa halayaro. Marka waa in go'aan la qaataa sidii gabadhan iyo wiilkan lagu kala furi lahaa. Farxiyo waxay tiri ninkan in layga furo ma ahe, xal kale aniga ma lihi. Sababtoo ninkan nafta ayuu ga jarayaa. In muddo ah ayuu diidanaa ninkan oo Farxiyo oo ku qasbay in ay ku soo laabato reerka, laakiin ayadu way diiday. Waxa uuna ku xujeeyo haddii aan furayo waa in ay meherkeeda iyo wax walba ay igu lahayd igu tagtaa. Waxay tiri meher kama rabee, mar dhay madaxayga ha i siiyo. Sababtoo ninkan haddaan u laabto intaan kadib inuu idilo bas ay dhiman. Farxiyo meesha ayaa lagu furay oo ninkii ayada waa ay kala tageen. Waxa ay la nooshahay saaxiibadeed Layla, halkaasayna caawimaad ka heshaa oo waa ay ka raysatay dhibkii iyo dagaalkii joogtada ahaa ee mar walba ku jirtay. Saaxiibadeed ayay la nooshahay, nolosheedana nolol iska fiican ayay ku jirtaa, wax ka halaysan male, oo sida walaasheed oo kale ayay u ixtiraamtaa, gurigeed ayayna kula nooshahay. Layla waxa ay leedahay 2 carruur waa ayna shaqaysataa, ilmaheedii saddexaadna caloosha ayay ku sidaa. Nolosheeda nolol wanaagsan ayay iska tahay, nin baari ah ayaa qabo oo aad iyo aad u wanaagsan, bini'aadanimadana wax ka yaqaano. Layla Farxiyo halkaan ayay kula nooshahay saaxiibadeed, waa ayna ku qanacsan tahay. Farxiyo jaamacadda iyada ma aysan baran, laakiin guriga ayay iska joogtaa, halka ay Layla tahay dhaqtarad, subaxdiina shaqada ay aado, galabtiina ay imaato. Layla waxa ay la nooshahay ee la deganeed ninkeeda reerkiisa ee gurigooda nool yihiin. Farxiyana iyadana qoyskii ayay ka mid tahayoo dhinaca ayay iska joogtaa, halka ay saaxiibadeed inta ay maqan tahay ilmaha ay u sii daryeesho, ee u sii waardiyeyso, u sii hayso. Waxa ayna noqdeen 2 gabdhood oo walaalo ah ee mar walbana aad isugu xiran, walow yaraantoodii ee meel isku soo wada koreen, dhaqamadoodii iyo dabeecadoodana in badan ay isfahansan yihiin. Sheekadeeni intaas ayay noo joogaysaa. Waa mar kale